barnaamijkeena interview la qaado kuwa ugu adkaa qaybihiisa saddexaad ayaan ku jirnaa. Qaybta saddexaad ayaan bilaabeynaa. Qaybta saddexaad waxaa ka horeysa laba qayb oo kale. Labadaas qayb waxaan ku soo qaadanay qodobo muhiim ah. Qaybtan waxaan ku bilaabeynaa gabar soo doonatay shaqo meel goob shaqo timaaday ayaa ninkii weydiinayay su'aalaha ee interviewga qaadayay wuxuu weydiiyay waxaad sheegtaa wax 21 indhood leh haddana aan wax arkayn. Gabadhii ayaa yaabtay, waa ay fikirtay, waxayna codsatay in la siiyo dhowr daqiiqo. Waxaa la yiri inta rabta qaado inaad ka jawaabto su'aashaas ayaa noo muhiim ah. Waxaana noqon doontaa haddii su'aashaas aad ka jawaabto qofka ugu horeeya ee aan qaadano. Su'aashan dad badan oo ka horeeya ayaan weydiinay, cid ka jawaabtayna ma jirin. Gabadhii ayaa waxay qaadatay 4 daqiiqo in la siiyo. Waa ay fikirtay, waxa ay fikirtaba waxay ugu dambeyn heshay su'aashii jawaabteeda. Waxay tiri wax 21 indhood leh oo haddana aan wax arkaynin waa laadhuuga. Laadhuuga sida aad taqaano waxa uu leeyahay 21 indhood. Macnaha indhayaasha waxaa laga wadaa indhaha dhibacyada. Laadhuuga kow haddii aad ku darto 2 waa 3. 3 ku dar waa 6. 4 ku dar waa 10. 10 5 ku dar waa 15. 15 waxaad ku dartaa 6 waa 21. Sidaas dhibcaha laadhuuga ku yaala oo dhan marka laga bilaabo 1 ilaa 6 haddii iyaga la isku daro waa 21. Marka waxay tiri wax aan 21 indhood leh oo haddana aan wax arkaynin waa laadhuuga. Gabadhaas waxay noqotay gabadhii ugu horeysay ee laga qaato shaqadaas. Meel interviewga lagu qaadayay ayaa la weydiiyay nin interviewga laga qaadayay qoraalkan aad hadda aragto. Iiraan iyo Ciraaq kee saxan qoraal ahaan. Iiraan iyo Ciraaq sida aad hadda u jeedo waxay ka kooban yihiin 4 xaraf. Iiraan, Ciraaq. 4tan xaraf mid walba labadoodu way saxayeen. Ninkan ayaa waxaa la yiri marka Iiraan Ciraaq kee saxan ayaa la rabaa. Adiga waxa laga yaabaa marka hadda i daawanaya in aad dhihi lahayd labadaba way saxayeen. Laakiin ninkan sababta su'aasha loo weydiiyay waa uu dareensanaa. Waxa uu yiri waqti halaysiyo waxaa la yiri inta rabta qaado marka aad jawaabta soo heshana noo imaaw. Bis ninkii waa uu baxay 2 saac oo xiriir ayuu maqnaa. 2 saac markii uu yimid kadib waxaa la yiri hay jawaabta ayaan kaaga fadhinaa. Wuxuu yiri Iiraan iyo Ciraaq waxaa saxan Iiraan qoraal ahaan. Waxaa la yiri maxaa sidaa ku tiri. Wuxuu yiri sida caadiga ah marka qof uu laba shay ka hadlo shayga uu markasta hormarsiiyo ayaa ah shayga uu isagu jecel yahay. Tusaale wuxuu yiri aniga haddii aan ku imaado oo gurigaaga marti aan ku soo noqdo haddii aad ii timaado oo i dhahdo waxaa yaala bariis iyo baasto ee kee ku keena waxaan ku dhihi doonaa bariis ii keen sababtoo ah adiga waxa aad jeceshahay inaad ii keento waa bariis sababtoo ah markaad hadlaysay waxaad hormarisay bariiska. Haddii aad i dhahdo laakiin baasto iyo bariis ayaa yaala ee kee ku keena waxaan ku dhihi doonaa baasto ii keen sababtoo ah waxa aad hormarisay ayaa ah baastada iyada ayaana jeceshahay inaad ii keento. Marka ninkan ayaa loo sacbiyay waxaana lagu yiri waad mahadsan tahay bariis oo shaqo gal. Interviewga marka in la qaado ma ahan wax sahlan sababtoo ah marka interview la qaadayo qofka interviewga qaadayo waxa la rabaa qofka uu interviewga ka qaadayo inuu weydiiyo su'aalo caqliyan ah, su'aalo maskax u baahan oo kaliya. Qofka laga qaadayana waxa la rabaa su'aasha la weydiiyay inuusan ku degdegin qaab maskaxeed inuu uga jawaabo. Laakiin annaga inteena badan wadankeena su'aalaha qofka la weydiinayo waa su'aalo xitaa inta badan oo qof kasta oo caadi qiyaasi karo. Marka interviewga la qaadayo marka waxa loo baahan yahay in su'aaluhu ay noqdaan su'aalo loojiga qof kastana inuusan ka jawaabi karin. Kaliya ay ka jawaabi karaan dadka xigmadda iyo maskaxda u saaxiibka ah. Su'aal kale oo la weydiiyay qof interview meel shaqo ka soo doontay dad badan baa su'aasha la weydiinayay laakiin waxaan hadda ka soo qaadanaynaa qofka kaliya ee su'aasha ka jawaabay iyo sida uu u jawaabay. Marka qofkan waxaa la weydiiyay 2 su'aal. Labadaas su'aal waxay ahaayeen 2 su'aal oo isdul saaran. Waxaa la yiri marka waxaad sheegtaa wax luga leh oo aan socon iyo waxaan luga lahayn oo socda. Ninkii ayaa yaabay wuxuu yiri waxaan luga lahayn oo socda iyo wax luga leh oo socon.
wuxuu codsaday marka maadaama interviewga aad u adkaa su-aashaasna dadkii shaqada soo codsaday intooda badan aysan ka jawaabin isagana uu yahay dadkii ugu dambeeyay ee interviewga ka qayb galayay wuxuu codsaday marka in waqti la siiyo. Waqti ayaa la siiyey, waxaa la siiyey keliya 2 daqiiqo. 2 daqiiqo ayaad haysataa ayaa la yidhi. 2 daqiiqo markay kuu dhammaato 2 su-aal jawaabtooda lagaaga fadhiyaa. maskaxda bini'aadanka waa waxaan caadi ahayn. 2 daqiiqo ayuu ku fikiray wuxuuna keenay jawaab la yaab leh. Wuxuu yidhi horta aan kaaga bilaabo wax luga leh oo aan socon waa miiska hadda aan dul fadhino. miiska hadda aan dul fadhino wuxuu leeyahay 4 lugood ayuu leeyahay mana socdo. waa la yaabay dadka interviewga qaadayay ayaa dhoola cadeeyay. waxaa la yidhi okay waad ka jawaabtay, waxaan ku siinaynaa marka waqti kale ma ku siinaha la yidhi si aad su-aasha kale uga jawaabto. maya ayuu yidhi waqti kale ayaan laysiin, hadda ayaan rabaa inaan ka jawaabo, aan saxo ama aan qaldo, nasiibkayga ayaan cunayaa. marka wuxuu yidhi wax luga leh waxaan luga lahayn oo socda waxaan luga lahayn oo socda way badan yihiin ayuu yidhi. waxaa kamid ah uu yidhi waqtiga, waxaa kamid ah webiga, waxaa kamid ah biyaha badda. biyaha badda way socdaan ayuu yidhi, lugana ma laha. waqtigu wuu socdaa, lugama laha. biyaha webigu way socdaan, lugama laha. marka su-aashayda intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa ayuu yidhi. haddii aan saxana halaysiiyo shaqada, haddii aan qaldana dadkii hore ayaan lamid ah. qoladii marka interviewga qaadaysay ayaa aad u qoslay, way dhoola cadeeyeen. waxaynu ku dhaheen runtii waxaa tahay nin aad u caqli badan, beri soo shaqo gal. waxaan rajaynayaa qaybtan 3aad inaad ka heshay si aan u helno saaxiibo badan. haddii aad nagu cusub tahay subscribe tahay loobin, haddii aad ka mid tahay saaxiibadeennii horena like saar, sababtoo ah mawduuca uu ka like badan yahay uu ka saameyn badan yahay. intaan dib dambe ugu kulmi doono qaybta 4aad oo middan ka xiiso badnaa doonta, waxaan isku dhaafaynaa sida iyo nabadgelyo.